وينيا حزبك وطني عبد القادر جردان ku qornaa laakiin barkhad baa ka jooga ku soo dhow وبرخد تفضل وهوغان حقيقة عدالة حزبك وطني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد مدحوينها جمهورية الصوماليلان أردد قلنشبين إيسا مدحوينه كحجينكي وهوري حسن عيسى جامع مامولكا يا مدحدة جامعة دبا وحنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان كل يبا دردار فربدن ببرتن لغا جيديي waa maalin farxadeed waa maalin aad ilo wadaagayno guusha iyo geediga dheer aad muddada soo wadeen waa maalin aanu af waalididu kula hadlayno waa maalin qarannimada iyo jiritaanka iyo quruxda dalka aynu bartan kaga wada qayb qaadanayno hambaliyada koowaad waalidka iyo ardayda markaan ka imaado waxaan ilaahay idinka baryayaa cilmiga aad barateen inuu noqdo mid aad dal iyo dad iyo diinba ku anfacdaan mid aydu nolosha ku hana qaadaan mid hal abuur iyo hogaamin dalka anfacaya aad kula timaadaan xisbiyada mucaaradku maxamuud baan saxayaa cudur ma iibiyaan caafimaadka ummadduunbay ka shaqeeyaan wixii toosanna way hambaliyeeyaan wixii qaldanna tilmaam toganunbay ku yeeshaan intaasi hordhaca markaan kaga yimaado guddoomiyihii xisbigu safar buu ku maqan yahay guddoomiyihii kusima ahaana hawl kalu yeeshay anaa markaa wakiila aniguna hambalyadaasaan idiin sidaa waxaan ku darayaa jaamacadda hargeysa maantoo kale waxaan xasuusinaysaa qalanjabinaha noocadahana ee dhici jiray iyo muuqaalka yeelan jireen waxaan doonayaa inaan sawiro jaamacaddu siday ahaan jirtay iyo maanta madashan bilan ee boqoro nooca ay tahay 2005tii ayaan kuuliyadda sharciga jaamacadda hargeysa soo galay albaabkaasaan ka soo galay xafiiska diiwaangelinta ardaydu barxaddu ku yaalay administration office-ku wuxuu ku yaalay finance-ka iyo xafiiska madaxweynuhu albaabka hoolka dhinacan ka xiga markaan soo socdo iyo marka la soo galayba hal askari baa jaamacadda joogay duruuftay jaamacaddu soo martay way badnaayeen waxaan ka xasuustaa madalahan qalanjibinta waxa isugu iman jiray siyaasiyiinta dalka waxa iman jiray madaxweyne riyaale waxa iman jiray madaxweyne siilaanyo madal waxay ahayd aragti siyaasi la isku dhaafsan jiray may jirin tiknoolajiyadan maanta live-ka u baxaysaa waxay ku koobnaan jirtay cidda warka baahinaysa TV-ga qaranka iyo raadiyo hargeysa lixda degme hargeysa waxa loogu daawashay iman jiray hadallada quruxda badan ee madaxdu isweydaarsanayso waxaana markaa xoog loogu badnaa xisbiga kulmiye oo markaa baracad ku hogaaminayay saaxadda siyaasiga waxaan xasuustaa markii dambe daahir riyaaliye siilaayo way iska joogeen waxa iman jiray madaxweynaha hadda talada haya muuse biixi cabdi iyo axmed yuusuf yaasiin maalmaha ka mid ah markaa bahasha milixda mucaaradadana faysal baa u samayn jiray faysalna inta badan wuxuu la socday kulmiye marka hadduu insha allah tacaala ku bilaabo bahashu dhowdaa yeedhi jirtay muusena madaxweynehena sharaftale wuxuu ku bilaabi jiray anigu ma qabo inay dhallinyaradaasi maanta shaqo waayi lahayd laakiin waa la hagranayaa markaa waxay ahayd madal runtii xiise gaara noo abuuri jirtay annaga oo maalintaa yacnii raadiyoga iyo TV-gana inta mucaaradka waa la jari jiray markaa meel energy lagu qaatay noqon jirtay waxaan uga socdaa xifiltanka noocaasi xumaan iyo naxli iyo cuqdad muu abuuri jirin dad walaalaayoo soo wada gala iyo dad walaaloo baxa oo ardayda u hambaliyeeya bay ahaayeen walaalayaal waxaynu doonaynaa
hogaaminta noocaas ee quruxda badan inaynu dib u soo celinno ee walaaltinimada iyo galgacalka abuuraysay jaamacaddu muddada ay jirtay waxaan maraka ahay sidaa cabdirashiid abshir sheegay 15 sannadood post graduate-kii iyadaan ku diyaariyey 2 sano master aan ku maqnaa hadda masterta good governance and leadership-kan ka baxayaa markii dambena waxaan noqday macallin kuuliyadda sharciga wax ka dhiga xogogaal baan u ahay oo cid iga xogogaalsan ma jirto horumarkay maanta maamulka iyo madaxda jooga gaarsiiyeen jaamacadda cidina indhaha ka qarsan maysa waxaad moodaa barxad ka duwan deegaan nololeedkii hore waana horumar aan ku ambaliyanayo boorka iyo madaxda iyo mas'uuliyiinta kale waxaan doonayaa bartan maanta inaan ka xuso 2 shakhsi oo tacab badan jaamacadda geliyey haddii ay muuqdaan waa shakhsiga inoo hirgeliyey markaynu buugaagtan iminka qalanjibinta acknowledgement aad qoraysaan ardaydu waxay ku qortaa waalidkay iyo hooyada iyo aabbaha iyo cidda tacabkay gulaan hambalyeenayaa laakiin anigu waxaan doonayaa maanta inaynu 2 shakhsi bartan ka xusno oo tacab badan jaamacadda geliyey hool buu madaxweynuhu hadda xadhigga ka jaray hoolkaa waxaan doonayaa in shakhsi loogu magac daro muuqaalkiisa madasha kuma arkayo waa askariga la yidhaahdo yuusuf oo 15 sannadood jaamacadda joogay yuusuf sacab baan doonayaa xooga inaad u tuntaan ninka labaadeen doonaya inaan xusaa waxa weeyaan waa imaamka masaajidka jaamacadda tujiya oo 15 sannadood maalin keliya hataan inaga habsaamin waxaan xasuustaa marka salaada maqribi inoo tujiyana dee kelmado dardaaran iyo wacdi buu inoo jeediyaa maalimii u dambaysay wuxuu lahaa guurka xooga loogu dadaalo dee markaa ciddii iminka iscaalmalatayna dardaaranka sheekha ha qaadato dee ha isguursadaan waxaan ku gabagabeynayaa kaftankaa kadib dadkeenna qiimaha leh haddaynu xusi weyno dadkeenna qaranka waxgashada haddaynu xusi weyno dadkeenna sharafta leh haddaynu maamuusi weyno innaguna meel gaadhi mayno gabagabadeedu waxay tahay xisbigeega waddani walaalayaal annaga lanooga boqon maayo nabadgelyo darro lanooga boqon maayo qarankan hagardaamadiisa lanooga boqon maayo inaannu mustaqbalkiinna meel xun marinno lanooga boqon maayo muuqaalka iyo sharaftaa qarankani leeyahay inaannu wax xun ku samayno waxaannu u tanaasulnay ee dariiqaannu u marnay aan kiniinkii qadhaadhaa ee doorashada u liqnay waa dhowridda aayihiinna iyo mustaqbalkiinna iyo sharaftiinna iyo calanka somalilan inuu daafaha dunida ka bishooya waxaan ku ururinayaa kelmaddayda xukuumaddaan ugu baaqayaa cidda doorashooyinka daneeya ugu baaqayaa doorashadii u dambaysay ee aynu galnay xisbiyada qaranku xaafaday inaga noqdeen xumaanta iyo naxliga iyo nacaybshaha ummadda la dhex dhigay kala gaadhana waannu la soconnaa nabarrada noocaasa dhayiddeeda ciddaynu ka rabnaa waa madaxweynaha qaranka iyo xukuumaddiisa waxaynu ku baaqaynaa doorasho noocaasi mar dambe inaanay nugu soo noqon madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne waxaa tahay geed hadhac oo la harsanayo waxaannu kaa rabnaa ummadda somalilan inay kugu harsato cadaalad iyo sinaan iyo horumar ummaddaad ku hoggaamiso waxaannu kaa rabnaa inanka lowyacaddo jooga iyo inanta laasqore fadhidaa inay cadaalad iyo sinaan sharciga hortiisa ku helaan waxaannu kaa rabnaa ardaydaa maanta baxaysa iyo kuwa gobollada kaleba ka baxay inuu mustaqbal iyo masiir wirwidhaya aad u samayso waxaannu kaa rabnaa wixii dhacay ee doorashadaasi sababtay inaad ummadda ka dhaydo waxaannu kaa rabnaa odayga somalilan baa tahay astaanta qarankaa tahay muraayadda ummaddaa tahay kii ku diiday iyo kii ku doortayba inaad geed hoostii fadhiisiso inaad ummadda isku hayso inaad midnimadooda ilaaliso in sharafta iyo qarankan qiimihiisa mas-uul adigaa ka eh ciddii wax tabanaysaba barteeda inaad ku gaadhaan madaxweyne kaa codsanayna waxaan ku ururinayaa oon ku soo gabagabanaya maxamuud baa la soo ururi maxamuud weligiiba marka munaasibadaha horeen ka sheekeynaya jaamacadda weligiiba ruux kulmiyaaba isaga jirtay markaa waa kan igula soo ururi waan soo ururinayaa macallin waana macallinkaygii waxaan ilaahay ka baryayaa oon ilaahay ka rajaynayaa macallin raallikaa waay waxaa ilaahay ka baryayaa in somalilan qurux badan oo sinaan iyo cadaalad lagu wada naaloodo 8 bilood bay xukuumaddu hadda talada haysaa sanad baa dhammaan doona 4 sano kadib waxaanu doonaynaa inaannu xukuumadda kala wareegno somalilan qurux badan
oo jiritaankeeda iyo sharafteeda iyo calankeeduba bibanayo rajana waanu ku qabnaa inaanu doorashada heli doonno insha allahu marka waa kii maxamuud lahaa wixii cuduraha la iska ilaaliye wax caafimaad qabta mooyaane wax cudura ma naga soo baxeen waad mahadsanti